maanta waxaa soo baxay liiska baasaboorada caalamka ugu quwada weyn iyo kuwooda ugu hooseeya ee ugu taagta daran. Liiska ugu horeeya number 1 wuxuu noqday wadanka Singapore. Sax, midda qosolka ah ayaa waxaa ah liiska ugu dambeeya ugu hooseeya ugu taagta daran ayaa noqday Soomaalidii. Haddaba Soomaaliya waxay soo martay marxaladooyin kala duwan, waa la ogyahay, balse maanta in caalamka ayadoo waqtiga lagu jiro ay Soomaaliya u hooseyso runaantii waa mid qalbi jab iyo niyad jab u keenaysa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Singapore ayaa ah dowladda koowaad ee baasaboorkeeda lagu tagi karo caalamka oo idil bilaa visa, taas oo ah baasaboorka ugu quwada weyn caalamka, ugu sharafta badan, loo xushmeeyo. number 1 bay ka gashay. Sidoo kale liiska haddaad fiiriso, Soomaaliya ayaa baasaboorkeeda noqday kan ugu qiimaha yar ama kan weliba ugu hooseeya oo aan caalamka si fiican maaragtay looga soo dhaweyn. Haddaba Singapore waxay madax bannaanadeeda qaadatay waa Agoosto 1965. Soomaaliyana waxay madax bannaanadeeda qaadatay July 1960. waa 5 sano kadib Soomaaliya markay madax bannaanadeeda qaadatay. Haddaba waa Singapore. Haddaba sidaad la socotid, baasaboorka dalka Soomaaliya wuxuu soo maray marxaladooyin kala duwan. burburkii kadib ilaa ay hadda Soomaaliya oo ay ku dhawaad 35 sano lagu socdo, waxay ahayd in dalal ka badan at least 100 in maaragtay ay ku ixtiraamto oo ay viisahaaga dalku galka si toos ah ku siiso. Ilaa ay maanta dhibaatooyin fara badan ay shacabka Soomaaliya kala kulmaan baasaboorka maanta jiro. weliba baasaboorku wuxuu qiimo lahaa waqtigii Soomaaliya waa 80meeyadii, taasoo aad loogu xurmeyn jiray lagana xushmeyn jiray caalamka. Haddaba sidee loo egaa wadamada caalamka viisaha lagu ixtiraamay ama dalku galka lagu ixtiraamay? waa inuu wadankaas xiriir wanaagsan la leeyahay wadamada. number 1 waa in horumar uu dalkaas jiro, waa inuu wax soo saar leeyahay, waa inuu wax ku soo kordhiya caalamka. taasna maanta Soomaalidii kuma mashquulsan, waxay ku mashquulsan yihiin laandheeranimo iyo anaa ree hebel ah iyo calan hebel. balse Singapore waxay noqotay wadanka ugu xurmada badan, ugu xushmada badan. taasna maysan gaarsiinin dad kale ee dadkooda ayaa isgaarsiiyay. waxay caalamka ku tagi karaan viisa la'aan dal walba ay caalamka ka doonayaan, ayagoo weliba xushmad iyo xurmad ballaaran looga hayo caalamka. taas waxay ku kasbadeen waa in ay ka shaqeeyaan dalkooda, waxay dhoofiyaan caalamka. waxay Singapore caalamka u dhoofisaa waa technology, electronic services iyo waxyaalo fara badan, ayagoo weliba ka faa'iido 900 oo bilyan. waa Soomaaliya waxay caalamka u dhoofisana ma jirto, waxay caalamka kaga sareyso maanta lagu ixtiraamo lama hayo. dal walba talaabada laga rabo inuu qaado ayaa ah haddii ay rabaan in dalku galka ama viisaha ay u noqoto free ama ay u noqoto mid lagu xushmeeyo, waa in uu dalkaasi wax soo saarkiisa uu sareeyo, waa inuu dalkaas yahay mid amnigiisu sareeyo, waa in dalkaas uu yahay dal ixtiraam leh oo dadkiisana aad loo ixtiraamo. haddaba Soomaaliya intaasoo dhan mid ay ku horumartay ama ay maanta hayso ma jirto. marka su-aasha joogto maanta ayaa ah, yaa u maqan dalka? yaa doonaya in baasaboorkan dhulka laga qaado oo soo geliya stage wanaagsan? yaa la rabaa in dalkii uu xiriir wanaagsan la yeesho caalamka? yaa ka shaqeynaya arrintaas? maanta Soomaalida dadka uga shaqeynaya ay sugayaan in lagu ixtiraamo dalku gal bilaasha ee caalamka meel ay rabaan ka mari karaan, oo ay run ahaantii la dhihi kara baasaboorka Soomaaliyeed heerkaasuu joogaa ama liiskaasaan sanadka dambe geenaynaa. dadka laga rabo yaa weeye? idinkaa su-aashaas idin siiyey oo waa su-aal joogto. waxaana jeclaan lahaa inaad commentiga inoogu sheegtaan kuna taageeraysaan videogan qof walba oo ku shuqul leh si looga shaqeeyo in insha Allah sanadka ku xigo sanadka dambe ee 2025 in at least aan hoos ka soo baxno meelo sare aan ka soo galno caalamka. Soomaaliya ha noolaato.